si badan maanu ugu dheeraanin si toos ahana maanu u sheegin laakiin dadku way garanayeen inuu carabka yar inuu agmariyo way garanayeen arrintani ma ahayn waqtigii ugu horreysay ee la yidhi cabdi maxamed cumar waa la casile ama wuu iscasile ama waa laga qaadi meesha waxaan u maraynay intuu hadda xilka hayay weliba sanadadii dambe 40 jeer ka badan baa arrintaasi soo yeedhay systemka loo maro waddanka in laga qaado madaxweynayaasha deegaanada systemka loo maro ma aha system kor looga yeedhiyo inta badan waxaa fadhiista guddi fulin baarlaman dastuurkay ku qoran tahay arrintaas oo dhan weliba maalmahan waxay dadku sheegayeen inuu xataa uuna shaqayn karin oo soo dardaaran la yidhi markuu soo noqday arrintu markuu yimidna isla markiiba shirar buu furay xabsigii jeelka dhexe ee dowladdeegaanka soomaalida ayuu maxaabiista ka sii daayey markii dambena baarlamanku ilaa hadda xilligan aan isla hadlayna baarlamankii baa fadhiya oo shaqadiisi caadiga ahayd buu wataa marka wuxuu arrintaas isagoo ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi war waxaa ila wanaagsan buu yidhi intan arrintana way nagu soo noqotay inaguna ascafino hawsha dadkan aan wada wadna ayuu yidhi zaare ilbeetobaanada iyo midkoraha kelin maanta deegaan Itoobiyanimada ku faanayo ayaanu samaynay annaga oo taageero ka helayna xisbiga EPRDF iyo shacabka deegaanka marka howlahaas oo dhan ayaan qabanay hase ahaatee qalad ma lihin ma oran karno oo markaad shaqaynaysid waad qaldamaysaa marka shacabkeenna cafis ayaanu weydiisanaynaa waxaanu leeyahay aan iscafinno annaga oo ka duulayna go'aanka cafiska ee ra'iisul wasaaruhu uu noo horseeday كورن يدا أو أنا لفتنا وكهذلي وحو مركي وكهذلي هلا هالشيء يدب هالله الشيء محو يجا كويري وأجنه هجان كودو عسمري كشرين دب يقدر تين قدومي هودي وح للشيء إنك رئيس الوزراء توبي حتى عسمري إسكو أركان ورك عين كاسة خد بدي سي بركة برنامجك مصو هذا القاضي أرنتن arrintan aan la soo hadalkaaday wuxuu yidhi si nabadana ku yimaadeen si nabada oo caadi ahana waddanka u dhaxmareen buu yidhi laakiin arrintan dad badan baa calaamad-su'aalka muujiyey oon laftu dowladda federaalka ayay isku dheerariyaan oo inay la hadasho iyo inay la fadhiisato iyo inay waddan weliba waddankan aan ahayn ay kula hadasho aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC-da ee jigjiga cabdinaasir xikam haddaba nairobi ayaan khadka telefoonka isla maanta ku wareystay faysal roble oo ah aqoon-yahan arrimaha gobolka ee ka faallooda gobolkana ka soo jeeda waxaan weydiiyey bal sida loo arko ama uu arko loona fasiran karo hadalka madaxweyne cabdi maxamed runtii waxaa in la heshiiyaa way fiican tahay laakiin madaxweyne cabdi maxamed hadduu qortay in uu gacan ku lahaa xasuuqa ballaaran ee muddada dheer socday waxaa la isku haystaa un siduu uga bixi lahaa because qof le naf baanu qaadnay saamaxu yar culus yahay in lagu tilmaamo marka madaxweyne cabdi maxamed uu leeyahay dadkaas waa la xasuuqay shacbiga soomaali galbeed ee kililka ku dhaqan muddadaa dheer dibta weynay soo gaadhay waxbaan ka ogaa gacanna waan ku lahaa laakiin waa laygu qasbay aniga waxay iila eg tahay arrintaasi nin weyn oo dembi caalami ah bini-aadminimadana ka baxsan uu qirtay runtii isagana aan u malaynay inay dhibaato gelin doonto sababtoo ah xuquuqal insaanku ma ogolo qofku inuu qof kala dilo si kastaba ha noqotee weliba gaar ahaan in siyaasad loo dilo shacbina la xasuuqo laakiin ma sidaas uu yiri sida hadda qoran inuu leeyahay waxay ugu qasbay ninka la yidhaahdo getajo ayaa horta la sheegaya haddii ay saas tahay ninka getajo la yidhaahdo aad buu uga dayriyey ninka anigu xafiiskiisa weligay ma tegin buu yidhi waaba yaabay ismana aanaan aqoonin nin wuxuu ahaa buu yidhi dadkao dhan ka awood badan iyo waddanka iyo dowladdaba cidna aan la tashan jirin horta cabdinuurow dee gobolkan siaad ku og tahay 10kii sano ee ugu dambeeyey idin mar waxaa la geliyey go'doon cuntada laga xidhay marka hadduu leeyahay geetaajow baa ka mas-uul ahaa arrinta aniguna amar baan qaadanayay arrimaha noocaasa waxa caddayn karo iyo labadoodaba in maxkamad lasoo taago tu gobol iyo tu caalami ay arrimaha markaas sida ay iyagu rabaan uga hadlaan laakiin caqliga ma gasho adoo madaxweyne kilil ah constitutionka etoobiya ma axdi qarameedka etoobiyana xuquuqku siinayo inaad ummadaada ilaaliso in aad ku andacoon karto waa la igu amray waxaan u malaynayaa maxkamadda adduunka arrintaasi arrin dhaafaysa maaha 22 sano ee TPLF meesha baarqabka ka ahayd kililka Soomaalida oo kaliya ta dhibaatooyin kama dhicin giddi way ka dhaceen xasuuq ka dhacay cabdi maxamed mar qofka kaliya ta ma inkastoo isaga dibkiisu ay aad uga calaacalayaan arrintan Ethiopia laba si waa inay ku duweysaa kow waa inay mar wada fiirsaa meelaha dunuubtu ka dhaceen iyo dadka lagu xadgudbay
ama gobolka Oromiya ha noqoto ama kuwa dhexe ha noqoto ama gobolada Amxaarada ha noqoto intuba amarka waxay ka qaadanayeen madaxda TPLF sidoo kale ayuu ka Soomaaliyuna ka qaadanayeen marka in si guud loo maro waa fiican tahay laakiin qirashada ayuu kaga duwan yahay madaxweynaha kilka Soomaalidu duruufta uu leeyahay waa la igu qasbay inaan sameeyo taasay ayaa isaga gaar u dhigay waa qodobka dib u heshiisiintana go'aanka dib u heshiisiinta aad u wanaagsan yahay Soomaaliba u baahan Ethiopia u baahan laakiin lazman waa in leadershipka kilinku isbedelaa dib u heshiisiintu way fiican tahay laakiin dib u heshiisiin waxay hadda ku suurad geli kartaa isagana raali gelin lagu siin karaa sida ugu dhaqsaha badan inuu Cabdi Maxamed kursiga uga dego isla markaana diyaariyo qorshe kala guur ah oo awoodda looga guurinayo xafiiskiisa awood cusubna la dhisayo ilaa inta doorasho dambe ka dhacayso taasi waxay u horseedi kartaa in wadahadal dib u heshiisiin iyo israali gelin ummadda Soomaali ee kilinka ku soo tallaabay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa ka hadlay guud ahaan isbedelada horumarineed ee ka socda dalkeena waxaana madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu sheegay in qorshaha cusub ee uu wado ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ee ku salaysan iscafinta iyo jacaylka ay ka deegaan ahaan ka dhaqan gelinayaan dhankooda maanta waxa weeyaan waxay ku beegan tahay maalintii waxa weeyaan boqolaad ee Dr. Abiy وحلك هي ويا الوزراء ذلك دكتور أبي أحمد وقولك عشوا وتشوي وزاروه حقبتك وقبتي إنك واحد نجادنا يقابك أي صدق حويا الوزراء ذلك دكتور أبي أحمد وشها وحويا صدق كدول وحويا نظام كيهوري أما قاب كيهوري لو شقيني وحالا كجد سنويا ورنتي نتيجوين كانت أنا قدوا قرشيس كوبادة إسعافيس إن ليس عفيو قرشها كوباد وحوي وصادقي وحويان وحوي ناقصان والله سوقبتي سدا سوكرنا وحبا محاكر على خلدي هل ليس عفيو وحويان هل يسكت القاطو شعايل هل كانوا وحي هوري دبكي هوري أنا عفينا بيج عصب عن فرنا قرشيس كوبادة الوزارة هل كان يسوي كدولية يعني مع إسنعيب وحويان قومية إن نعضو شخصين وشخص نوعه إن دباتوي نوع على صنعيه وحويان هرمر لقوم جاريه هذا متى قرشها الوزراء وحويان أنا أمسنها إنه كان هرمر نبتقليه مامل الصبان والدقدقة ولبنا والدقدقة ما كانت إجنو وعن قاعدة شديدة كونفليكس إيوه وناقة كشرة أنا وكدولينا كديجان هان إسبدل كأورزاره وحوي وضع شركي كودي دفرنته الشلة قال لي وحنس كلا قاعدة لي إنه يهاي مد وحوق وانا يا ومدة دلكة يكديجان كبا قارهان استمر كان دلك نجوحنا نجاء دين فرنتيز قرشها بقول كيا بقول إياه هجرش كشرين إن الصدى تهاي أنا فلولينه ayaan gud filaan isku la qaadanay hataa soo qaata hadaba anagoo waxa weeyaan ka duulina taa maxaan qabanay weeyaan waxaan qabanay koow iscafiska in waxa weeyaan wixii wanaagsanaa ee la soo qabtay dhanka horumarka nabadgelyada oo mucaarad iyo muxaafad nabadiid iyo nabadoonba uu markhaati ka yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya wixii la soo qabtay ee wanaagsanaa ee horumar kale ee waxa weeyaan كوبا نقالها له إيه نبتقليه له إيه وحويان كفانة إثيوبيا نمذ له إيه وحويان الشعير كله أسواق قبنا يسوي سياسة هاي حتى لما ركوا حلقة قبنا يو الشقاء خلى العالم لما قبته وحويان وحسبنا وحي وناكسنا إيه عن سواق قبنا يوانسي وعينا خلت كي عن قال لي إيه نجد عي وحويان وانصحنا عدي أنا جنبو خلدتنا وأنا عفينا تاسوي. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa sidoo kale sheegay in go'aankii baarlamaanka dalkeenu waana laf kaga saaray liiska argagixisada ka deegaan ahaan ay daweynayaan xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiyana ay cafisay dhamaanba maxaabiistii oo nolaf ku eedeysna maantana aysan jirin cid u xidhan onolaf madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu nolaf ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qorshaha cafiska iyo jacaylka ee guud ahaanba ururada kale ee dalku ay ka faa'iideysteen qorshaha rajulada ee ku salaysan wanaaga ee ku salaysan iscafiska ee ku salaysan
waxa weeyaan wada noolaashaha isjacaylka qoomiyadaha iyo dhammaan waxa weeyaan shacabka Itoobiya annagoo taa ka duuleynaa waxaan isla qaadanay kow xabsiga dadka ku xiran in aan afino oo aan waxa maxaabiista afino yaan isla qaadanay waa qodob maxaabiisti marka saddex qaybood loo kala dambi culus dambi fudud iyo ururo maxaan ku rahayn nabadiida ururka waxa weeye maxaan ku rahay oo ina la fokale xiran maxaabiisti baa isla qaadnay totally waxaan anagoo ka duuleynaa go'aankii ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanku dalka Itoobiya oo ansixiyay uu kaga saaray waxa weeyaan ururka oo la kaga saaray argagaxisnimada anagoo ka waxa weeyaan siday tahay u qaadanayna iyagana ugu baaqayna in wanaaga loo muujiyo ay ka faa'iideystaan oo nabadda ku soo dhawaadaan anagoo iyagana ugu baaqayna anaguna ka si aan u xaqiijinay inaan qaadanay dhammaan dadkii ku xidhnaa ururka oo ay la xidhnaa oo dhan oo dad ka qaadnay waana sii deynay waana cadeynay saacadan aan idila hadlayo hal nin oo ONLF ahaan u xidhan ma jiro madaxweyne cabdi maxamed madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qorsheynayso in dhammaanba jeelasha deegaanka la xidho miisaaniyadii ku baxaysayna loo isticmaalo dhanka horumarka isla mar ahaantaana lagaga shaqeeyo kabayaasha horumarineed waxaa kale oo aan qorshaha ku dirsanay fulinteedana aan hirgelin doonaa haddii Ilaahay yidhaaho in xabsiyada aanu bedelo xarumo horumarineed tusaale ahaan xabsiga oo kale waxba iskuul loo bedelo masaajid loo bedelo xara caafimaad loo bedelo waxaa kaloo isla qaadanay miisaaniyada maxaabiista nagaga baxaysay qofka saddexdiisa cunto iyo dawadiisa iyo kharashka ku baxaya leerka biyaha kuwaas inaan u adeegsano dhanka horumarka oo aan u soo iibsano waxa weeye ku soo iibsano dawo guriyada ku dhisano oo dhanka horumarka isagu iskuul lagu dhiso maxaabiista lacagta ku baxaysa taana maxaan ku raayay waan isla qaadanay waana maxaan ku raayay oo waxaan fulinayna weeyaan marka waxaan cadeynaynaa in nidaamkan uu waxa weeyaan cusub ee wasaaruhu keenay qorshihiisa inuu yahay mid aan aaminsan inuu yahay mid dalkan anfici deegaankan anfici